meeshaan waxaan uga hadlaynaa hindis sharciyeed waxaana la soo saaray xeer nidaamiye oo beejajka ugu horeeya ah. waxaan u malaynayaa xeer nidaamiyahan wuxuu ahaa sharcigii ka horeeyay sida uu sheegay xogeeyihii hadda noo aqrinaya sharciga oo yiri waagii horeeto sharcigan hay-addan waxay ku dhisnaan jirtay hay-adda nabad sugidda bay ka mid ahayd. hay-adda nabad sugidda wixii ka dambaysayna waxaa lagu wareejiyey oo loo madax bannaanaysiiyey hay-ad gooni u taagan inay noqoto, maadaama ay tahay sharcigan hadda xeer nidaamyahan lagu soo lifaaqay wuxuu ahaa markii la sameynayay sharcigaas oo lagu kala saarayay, wuxuuna ahaa sharcigaas waxaa loo tiigsaday sharciyadii hore oo waagii dowladda ay jirtay, dowladdii siyaad barre Allah u naxariistay. saas darteed waxaan leeyahay xeer nidaamiye ma soo hormaro hindis sharciyadaa soo hormara. xeer nidaamiyahana meesha lagu soo lifaaqay waxaan leeyahay marka ugu horreysa in laga noqdo oo xeer nidaamiyaha horta laga saaro, because hindis sharciyeed aan weli hadda akhriskiisa labaad lagu jiro xeer nidaamiyihiisaas oo lasoo hormarinayo wax macquula ma aha. mid waa taasa. haddaan hore usii galo qodobka 8aad waxay ka hadlaysaa awoodaha hay-adda. farqadiisa 3aad haddaad ila fiirisaan in ay yeeshaan ciidan hubaysan oo ilaaliya xarumaha hay-adda iyo kuwa ka howlgala baraha xuduudaha dalka oo dhan. okay, waxaan u malaynayaa 4 ciidan inaan leenahay sida uu dastuurka noo sheegayo. haddaan qaldanayn qodobka 126 wuxuu leeyahay xukuumadda federaalku waxay damaanad qaadaysaa nabadda, gobonnimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo badbaadinteeda shacbigeeda, iyadoo meeshaas ay ka soo geli kartaa iyadoo la adeegsanayo adeegyada ciidanka amniga oo ay ku jiraan marka la yiraahdo waxaan u malaynayaa inuu 4 ka badan yahay. saas darteed waxaa kaleeto u sii ansixinaya inay ciidan samaystaan. qodobka 130aad haddaad ila fiirisaan wuxuu leeyahay sharciga hay-adaha ammaanka labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo saaraya xeer maamulaya qaab dhismeedka shaqada iyo heerarkooda hay-adaha ammaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maadaama labada gole la yiri waxaan aaminsanahay in hay-addan ay samaysan karto ciidan dheeraad ah oo aan ahayn 4 ciidan oo noogu qornay dastuurka oo aan dheeraad ka dib ku dari karno. saas darteed waxay u baahan yihiin ciidamada booliiska sidii aan hore u sheegnay haddii lagu daro waxaa ka qurux badan inay helaan ciidan u tababaran xuduudaha oo gooni u ah, maadaama shaqadoodana qaban kara. laakiin hadday ciidan booliis noqoto waxaa laga yaabaa in maanta ayagoo duutiga ku jiro laga saaro oo kuwa kale loo keeno haddana tababar kale uu bilowdo. saas darteed waxaan soo jeedinayaa waxaan ka hadlayna waa mustaqbalka dalka in ciidan u gooni ah ay helaan si kontroolkoodana loo helo. mid waa taasa. haddii aan usoo dhaadhaco qodobka 7aad ujeedooyinka hay-adaha meeshaan waxaan u malaynayaa ila fiiriya qodobka 1 iyo 2 iyo 3aad xoogaa waxaan u malaysaa sidii la rabay inaysan order u ahayn. qodobka 1 aniga waxaan ka dhigay farqada 3aad. waxaan ka hadlaa waa qodobka 7aad farqadiisa 3aad baa wuxuu noqonayaa farqada 1 oo ah ilaalinta iyo kontroolka iridaha dalka laga soo galo loogana baxo. kaas haddaan number 3 ka dhignay number 1 ka awal ayaga waxay ka dhigeen horumarinta iyo fududeynta dhammaan adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyadda. alloora taas inay 1 gasho midda hadda aan akhriyay inay 3 gasho waa laga qurux badan yahay aragtidayda. in midda 1 laga dhigo farqada 3aad ay 1 noqoto midda 2aadna
midda afraad aan ka dhigay oo ah hubinta baarista iyo xaqiijinta dokumentiyada socdaalka iyo baasaboorada socdaalayaasha soo gelaya ama ka baxaya dhammaan iridaha iyo barxuduudeedyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. tan saddexaadna waxaan ka dhigay waa ku soo celinayaa horumarinta iyo fududeynta dhammaan adeegyada la xiriira socdaalka iyo jinsiyadda. tan afraadna waxaan ka dhigay bixinta noocyada dokumentasiyada safarka ee dalku leeyahay, dalku galka, dalku jooga iyo deganaanshiyaha. okay, qaab dhismeedka hay-adda wuxuu u kala baxaa laba qaybood oo kala ah socdaalka iyo jinsiyadda, wuxuuna maamul ahaan u dhisan yahay sida tan: kow, hal agaasime; laba agaasimo guud ku-xigeen oo kala ah agaasimo guud ku-xigeen socdaalka, agaasime ku-xigeen jinsiyadda. qodobka tobanaad waxaan u akhrinayaa haddaad ila fiirisaan qodobka 12aad in la isku xijiyay ahayd, because qodobka 12aad wuxuu ka hadlayaa magacaabista agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisa. qodobka 10aadna waxaan ku soo aragnay qodobka 10aad wuxuu ahaa qaab dhismeedka hay-adda. okay, qaab dhismeedka hay-adda wuxuu noqday hal agaasimo guud, laba agaasimo guud ku-xigeenada jinsiyadda iyo socdaalka. qodobka 12aad magacaabista agaasimaha guud. magacaabista agaasimaha guud iyo ku-xigeenada marka la leeyahay ku-xigeenada meesha laga dhahayo markii horeetaanba waxaan ku soo aragnay qodobka 10aad oo la kala saaray oo mid walbaba magaciisa gooni loo sheegay ku-xigeenada waxa ay qabanayaan. magacaabista maxaa loogu dari waayey oo loo dhihi waayey agaasimaha guud ku-xigeen socdaalka, agaasimo ku-xigeen jinsiyadda? saas inay ku timaado baa ila habboon oo meeshaan la geliyay, because hadda waxaan samaynayna waa hindis sharciyeedkooda. okay, qodobka 14aad haddaad ila fiirisaan wuxuu leeyahay muddada xilhaynta agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisa. agaasimaha guud iyo ku-xigeenadiisu waxay xilka haynayaan muddo 5 sano ah. okay, waxaa laga buuxiyey wax allaale iyo wixii laga buuxin lahaa dadka abalaygaraynaya shaqooyinka caadiga ah. kuma imaanin doorasho sida annagoo kaleeto ah oo muddadeenna ay cayiman tahay. qofka waxaa muddo loo cayimi karaa oo la dhihi karaa waqtigaasuu galayaa 5 sano oo 4 sano. waxaa la dhihi karaa aniga iyo guddoomiyeyaashayda iyo madaxweynaha, intaas waa la dhihi karaa. laakiin qof shaqaale ah oo buuxiyo shuruudihii looga baahnaa in 5 sano meeshaa lagu soo qoro oo 5tii sano kastaba doorasho galaa la yidhaahdo, horta waa ka soo horjeedaa. sababtoo ah waxay hoos tagayaan shaqaalaha rayidka. agaasimo guud haddaad maqashaan muxuu kaga duwan yahay agaasimayaasha guud oo kale oo wasaaradaha? xogta ay leeyihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin waa inay hay-addan lahaataa oo lagu soo daraa shaqaalaha rayidka. haddii shaqada waqtigiisii ama 5 sano kadib ama 10 sano kadib ama 1 sano kadib oo shaqada uu ka tago, waa inuu helaa shaqaale rayid, waa inuu ku biiri karaa. hay-addana waa inay ahaataa waa 2 qaybood ay u kala baxdaa. waa mid ciidan ah, waa inay hoos tagtaa ciidanka. waa mid rayid ah, waa inay rayidka hoos tagtaa. laakiin shaqaalaha waxaad u malaysaa meel dhexe inay hahaabanayaan oo meelay ka tirsan yihiin ilaa hadda aan la aqoon. hay-addana waa hay-ad adag oo culus. waxaan soo jeedin lahaa in 5 sano oo meeshaas ku taalla laga saaro ay yihiin mas-uuliyiin xuquuq leh oo agaasimo guud ah sida agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kaleeto. waxayna ku yimaadeen intii shuruudoo laga rabay ay buuxiyeen. taas halkaasaan uga baxayaa. waxaa kaleetood ila arkaysaan qodobka 23aad oo ka hadlaya miisaaniyadda farqadiisa 2. waxay leedahay hay-adda waxay sanad kasta u
diyaarinaysaa miisaaniyadda sanadka waxayna u gudbinaysaa wasiirka wasaaradda ay qusayso. hadda maaliyadda ma wasaarad kala qabnaa annaga oon maaliyadda ahayn? meeshaas waxaan leeyahay wasaarad ay qusayso in laga saaro oo lagu cayimo wasaaradda iska leh waa wasaaradda maaliyadda. haddaysan ahaynna wasaaradda ay tahay kollay madaxa la nuuxi waan aaminsanahay oo gaafow inuu meelahan immigration hadday noqdaan waxoogaa iiga cilmi roo yahay, laakiin aniga dhanka sharciga keliya waa waxaan ku hadlaayo wasaaradda ay tahay okay. waxaa jirta oo kaleeto qodobka saddexaad may farqadda saddexaad oo qodobka 23 hal farqaan rabaa inaan ku daro. waxaa la yidhi hay-adda waxay u madax bannaan tahay maamulidda miisaaniyadda loo qoondeeyey si waafaqsan shuruucda maamulka maaliyadda guud ee u degsan dalka. waxaa laga yaabaa inay hesho hay-adda maxaan dhihi lahaa deeqo ka baxsan. waxaa lagu siin karaa baabuuraa la siin karaa, waxaa la siin karaa qalabkaas la siin karo waxaa laga yaabaa inaysan miisaaniyaddeeda ku jirin. bacdeen waxaan leeyahay qodobkan in lagu daro oo ah hadday hay-ad siisay ama ha ahaato hay-ad caalami ah ama mid gudaha joogta ama dibadda joogta inay soo caddeeyaan, ama baabuur hataa hadday noqoto ama ay noqoto xataa haddii alaab kale loo keeno si dakhliga loogula xisaabtamo oo gudaha loo soo geliyo.